أدل ما سنتي دمان قولها إيديه قلت السياسة فلقيت arrimaha Soomaaliya hadda waxa ay muuqadka toos ugu jirtaa magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland waxaana hadda khadka si toos ugu jira Nuur Shire Cusmaan oo ah madaxa bulshada rayidka ee Puntland isaguna shir gudoominayay shirkii ay shalay beesha caalamku ay la yeesheen bulshada rayidka ee Puntland Nuur Shire Cusmaan ma maqlaysaa si wanaagsan aad baa u mahadsan tahay sida aad waqtiga qaaliga aad golaha u soo siisay wariye sooyaal ayaana ku wareysan doona bal waxaad warbixin kooban naga siisaa shirkiinii shalay aad la yeelateen beesha caalamka oo iyadu danaynaysa inay la kulanto bulshada rayidka shirkaasu waxa uu bilowday 4 galabnimo ilaa iyo 6 maqribnimona waa u socday beesha caalamka waxa ka socday ilaa iyo 8 maxaa kale wadanba ka socday unsom igad EU-da Afrikaanka Ethiopia waa ay Talyaaniga waa ay badnaayeen laakiin waxa ugu muhiimsanaa ninkaas Keating qaramada midoobe wakiilka uga arrimaha Soomaaliya annagu haddii aanu shirkii ku soo dhaweynay oo aanu niri hadee noo warrama waa ay warrameen cid kaleba meesha kama hadlin ninkaas udaga oo qaramada midoobe ka socday ayaa hadlay cid kaleba hadal ma jeedin meeshana kama hadlin isaguna hadee waxyaabo fara badan oo amaana iyo maxaan ku yiraahdaa xaaladdu inay go-aanka aanu qaadanay waqad waa ahaan karaa laakiin duruufaha hadda jira baa sababay halkaasuu la maray 4.5 maxaan ku yiraahdaa ilaa anagu waa taageeray dowladda go-aansatay anaguna waa taageeray sidaa darteed kaasaanu u soconay in idinkuna aad nala qaadataan sidaas buu ku bilowday jawigu kabacdi annagaan la wareegna hadalkii waxaanu markii horeba waa ogeyn in ay la soo socdaan arrintaas waxaanu diyaarsanay position paper baanu diyaarsanay Ingiriis iyo Soomaali ah halkiiba markaasi aanu Soomaaligii iyo Ingiriiskiiba ka akrinay mowqifkana u muujinay annagoo sababeynayna in Puntland aanay marnaba raalli ka noqon karin bulshada rayidka ay diidan tahay in qabiil lagu noqdo in 4.5 waxa lagu qaybsado oo ah qabiil waxaan u sheegnay in 1943 qabiil laga duugay Soomaaliya xilligii ay u dagaalamaysay xorriyadeeda halkaasoo aad looga bogsooday xorriyadan lagu gaaray laakiin 1990 xilliyadaas in maamulkii iyo magaalada hawlihii oo xumaada darteed shakhsiyaad doonaya kuraas doonaya ay siyaasadii qabyaaladeeyeen oo qabiila dumeen halkaasna dagaaladii ka dhacay ummadda Soomaaliyeed la isku laayay annagu hadda Puntland aana 1998 aanu ka baxnay dowlad dhisanay baarlamaankeedu uusan qabiil ku salaysnayn gobol ku salaysan yahay wax walba oo dawladda leedahayna aanu leenahay sidaas darteedna aanan hadda anagu qabiil ku noqon karin anagoo intaasoo la soo jiray xilliga 2016 ayaan suurtagal naga ahayn inaanu qabiil ku noqono waayo degmooyinkii baa shaqeynaya oo mayorska lasoo doortaa baarlamaankii dawliga baajira golayaashii dawlahaydihii dawliga oo dhan baa shaqeynaya marka saacadeed yani xilligan kuma laaban karo qabiil kuma laaban karo sababo badan baanu sheegnay maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha aanu ku dhaliilayno dhaliilo badan baanu soo jeedinay beesha caalamka runtii waday ka mid yihiin markii ugu horeysaba sababta keentay inay durbadiiba go-aan soo saartay dowladda federaalka ay sheeganayso oo laga yaabo in aan saddexda ugu sareysa cidiba ku helin ilaa markiiba ay aqbalaan oo yidhahdaan waa aqbalay islamarkaana golayaasha iyo shirar ka jeediyeen Soomaalidu waa ku heshiis 4.5 sababtaas waanu sheegnay waxaanu kaloo sheegnay inaanu bulshada ku dhaliilayno inaan beesha caalamka ku dhaliilayno waxa keenay in ay
aqbasho go-aan ka soo baxay dawlad 4 sanadood ku fashilantay hawlihii loo idmaday ku fashilantay oo aan waxba qaban inay go-aankeeda qaataan waanu sheegnay. waxaanu kaloo sheegnay in maxaan ku yidhahdayy ay qalad tahay oo meel ka dhac ummadda soomaaliyeed ay ku tahay in xukuumad corruptia ama musuq maasuqa oo adduunka meeshii ugu hooseysay ka gashay in ay u dhabarjeliyaan soomaalida. waxaanu kaloo sheegnay in puntland aanay dooneyn kuraas ugu badata degmooyinka ugu badata inaanay dooneynin ee ay dooneyso halka ugu dhow wadada ugu dhow hal cod iyo hal qof ma garanaysaa hal qof iyo hal cod lagu gaari karaa inaanay ahayn 4.5 oo qabiil ah ee ay tahay xagga degmooyinka. waxaanu kaloo sheegnay waxyaabuhu aada iyo aada u tira badnaayeen. waxaanu kaloo sheegnay in heshiisyadii la galay iyo shirarkii la qabtay go-aanadii kasoo baxay qaramada midoobay iyo beesha caalamku ay ololeynayeen oo goobjoog ka ahaayeen oo kharajka maxaa bixinayeen miisaaniyadda dhaqaalaha ku baxaya bixinayeen oo goob walba mid kasta oo uu kasoo baxo go-aan kasoo baxo oo la wada saxiixo ama heshiis kasoo baxo inay goobjoog ka ahaayeen oo wax ka saxiixayeen kan lagu burburinayena ama kuwa lagu burburinayana ay haddana goobjoog ka ahaayeen oo wax ka saxiixayeen. dastuurkii ugu weynaayo ummadda soomaaliyeed ku heshiisay baa si xun loo galay isagii oo dhan magaranaysa hadda uu yahay qodobo iska hor imanaya. waxyaabihii ugu muhiimsanaaye magaranaysaa dawladnimada muhimkaa waa qodobadaas ayaa laga saaray iyadoo ay u muuqato in dangaara laga leeyahay ilaa iyo 50 milyan lacag aad u fara badantay baa la sheegayay in beesha caalamku ay dastuurkaas ku bixisay. haddana in isagii la burburiyo sababta ay raallin uga noqotay beesha caalamku annagu waxa weeye waa waxaan la yaabanahay oo isweydiinayno. sidaas darteed waxaanu anaga suurtagal bulshada haddaanu nahay rayidka reer puntland marnaba naga suurtageli mayso inaanu nidhaahno alla ilaah waa qaadanay 4.5 ma doonayno. waa in xal kaleeto la helo. midda kale waxbaa qaldan baanu nidiyo waxa qaldan idinkaa muul ah oo ugu horeeya marka beesha caalamka wax ka qaldan yihiin waa arrimaha soomaaliya aan si fiican oo hoose ula socone idinku isa soo saxdaayo markii aad isa saxdaan idinku ayaad wixii qaldan aynu sixi karaynaa. suurtagal maaha ummad aan laba heshiisiin sidii magaranaysaa colaadii meel walba kalsoonidii ay u jirto waxa ay u jiraan magaranaysaa kalsooni daradii ay u jirto yani in la yidhaahdo dawladnimo wada samaysto wax ku heshiiyo oo wax samaysta aad bay u qaldan tahay bal inta dib ha loogu laabto. halkaas baanu la maray oo intii hadee 2 saacadood oo dood oo qayba iyo buuq oo magaranaysaa waa dareemi karaysaayo qof waliba uu doonayo inuu duur aad mahadsan tahay. markii aad arrimahaas oo dhan aad usoo jeediseen oo uu dhegaystay wax jawaaba maynaysiy ma ka bixiyay arrimahaas muxuu ka yimi? wuxuu horta markii dambe dee ninkii meel uu kulligood horta dareen baa jiray oo waa ka muuqanayeen wejiyadooda in maxaan ku idhaahdayy meesha qalad ka jiro. isaga laftiisu wuu qiray laakiin waxa uu muujiyey in meel laga noqdo hadda aanay jirin. waxaan doonaynaa buu yihi bal talooyin in aadna siisaan. talooyinkana waxaanu dhihi talooyinka waa iyadoo qoraal ah baanu idiin soo gudbinaynaa. talooyinkaanuna magaranaysa aanu idiin soo gudbinayno. markii dambe waxaa ka muuqatay hadee wejigabax arrin wejigabax qalad in uu dhacay waxa weeye way arkaan qaarkoodna arrintaas wayba muujiyeen ba waxay yidhahdeen alla ilay apologize in laga bixiyo bay ku fiicnaan lahayd waxyaabaha qaarkood ba qaarkood ay yidhaahdeen magaranaysaa si gaara aniga igu yidhaahdeen. marka xaaladaas oo xun baa jirta. puntlandna wax gaara iyadu si gaar ay u doonayso ma jirto baanu dhihi arrintaas si dawlad loo helo dimuqraadiya oo maxaan ku idhaahday good governance ama dawladnimo wanaag loo helo halkaas baanu anagu doonaynaa magaranaysaa. calaa kulli xaal arrintu jik bay ku ahayd oo maxaan ku idhahday de hadeerna waxaan u malaynayaa qolooyinkii kaleeto buu shirala leeyahay oo waxaa u ballansan baarlamaankii waxaa u ballansan odayaal dhaqameedyadii waxaa u ballansan siyaasiyiinkii dibad joogga ahaayeen dawladda ayay ku jirin laakiin hadda ka hor jabooyin soo qabqabtay
marka waxaan filayaa in oo ay tegi doonaan iyagoo aan maxaan ku yidhahda helin ama iyagoo aan sidii ay magaranaysaa doonayeen aanay suurtoobin saasaan umalinaya. ma weydiiseen sababtaa ku kaliftay isaga oo soomaaliyaba saddex cisho jooga inuu go-aan noocaasa uu taageero? waa su-aashii ugu horeysay oo la weydiiyey bay ahayd, maxaa kugu kalifay in aad go-aan degdega qaadato adigoo markaasi aeroboortka kasoo degay oo aan waxba kala hubsan. wuxuu nagu yiri hawshaba anigu 3 maalmood oo keliya baan magaranaysaa markaasi joogay magaalada. marka waxaa ii muuqatay markii maxaan ku yidhahdaa soomaalidu ay wada hadashay oo wax go-aana kasoo bixi waayeen, in dawladdu ay go-aankeedaasi soo saartay, kabacdina ay khasab igu noqotay in aan aqbalo cabsi awgeed magaranaysaa, ama burbur dawladeed iyo hadda oo wax furfuran iyo wax kala baa adigu balaayo oo dhan buu tiriyey. laakiin hadde waxba looma jimcin, halkaasu cudurdaar wuxuu ka dhigtay inuu cusbaa, inuu meel uu ka qabto wax waayey, inuu markii soomaalidu ay heshiin weyday oo wax soo saari weyday ay dawladdu go-aankeeda soo saartay inay go-aankaas magaranaysaa ay iska aqbaleen. laakiin go-aankaas buu yidhi waa suurtagal inuu qalad yahay, laakiin lagama maarmaan bay ila noqotay, saasuu ugu jawaabay. marka barnaamijkaas ay og taageereen ee dawladduna ay keentay in ay ina kala tashadaan mooyaane wax kale oo ay u socdeen iyo inay wax ka bedelaan ma ka muuqatay? wallahi hadde dadka waxa weye waxa ay doonayeen iyagu waxa ay doonayeen oo keliya in 4.5 in sida wax lagu qaybsado la hirgeliyo. kaasna waa laga diiday. marka waa way noqonayaan markaas waa inay qorshe kale keenaan. haddii ayan qorshe kale keenin waxaan filayaa xaaladdu inay inta kasii fogaan doonto oo markaasi ayan marnaba u suurta gelayn. waa in talooyinkeena bay yidhaahdeen oo soo gudbiya talooyinkii waxaan rabnaa inaanu qoraal ugu gudbino ilaa iyo xad, laakiin haddee ma sheegi karin xataa isbedel hadduu ku yimaado qaarkood ma sheegi karin waxa ay kusoo heshiiyeen in shirkaasi ay yidhaahdaan alla yidhi hawshaasi waa ka noqonaynaa ama taasaanu samayn doonaa hadda wixii ka dambeeya ma keeni karin. toodii bay la tageen oo annaga nagaga gudbeen. okay, marka diidmada idinka dhankiina marka loo fiiriyo inaad diideen 4.5 ma jiraan inaad tanaasul iyo bal dabacsanaan inaad dhinaca kale ka muujisaan bal si xal loo helo? haddii xalka la heli karayaa waxaa la isku hayaa sideedaba ma aha arrintu 4.5 arrintu waa ka durugsan tahay oo ma aha xubno la kala barsanayo barlamaan lagu kala helayo maaha. arrin waa masiir weye. waa maqlayay inay yidhaahdeen annaga naguma oran, laakiin inay yidhaahdeen mashaariic baanu wadnaa, fara badan baanu wadnaa, aeroboortka boosaasood baanu inta ka dhiman samaynaynaa, waxaad yeelaysaan waa ognahay inaad dulmantihiin kanaate waxaasoo ammaan iyo waxaas. laakiin runtii dadka halka jooga dhegahoodu diyaar uma ahayn waxaasoo dhan inay maqlaan, waayo uma arkaan 4.5 wax arrimaha soomaaliya lagu xallin karo. waa wax masiira oo aan lagu gadan karin mashruuc iyo aeroboort la dhiso iyo maxaa wado la sameeyo iyo waa waxaan lagu gadan karin weye. oo ummadda soomaaliyeed in la gaadsiiyo meelay nabad ku wada tahay oo maxaan ku yidhahday 4.5 qabiyaalada ay kaga baxdo oo horumar laga shaqeeyo oo adeeg ma garanaysaa hufan oo nooc kastabana dadku ay helaan oo qabyaalada tan iyo cudurkaan laga saaro. hadda in la yidhaahdo qabiil baa haddana loo noqonayaayo oda dhaqameedyadii baa wuxuu ay hadir kuwa kan jooga cidna wax ma taraan jooga waa iska reer hebel bay yani wax aba yaraatee ay ummadda u qabtaan oo gaari ma jiraan. marka anagu haddana bulshada rayidka nahay waxaanu aada ugu tuuntuunsanay in ayna dhibayso qof kasta oo soomaaliya meel kastaba ha jooga inay na dhibayso haddaanuna bulshada rayidka ee puntland
qof kasta oo soomaaliya dhibaatada haysataa inay la dhibayso qabyaaladna maanta aan loo baahnayn qof waliba inuu xor u helo oo codkiisa dhiibto in la helo arrimaha deegaankayna in maxaan ku yidhahda iyada lafteedu qaab doorasho loo sameeyo waxa weeye options badan baa jira marka waxaasoo dhan baanu la maray iyaguna waxa weye de waxay u ekaayeen dad aan si fiican ba ula soconin arrimaha soomaaliya. anurow kolley idinka shalay nala shireen sida hadda ii sheegtayna intimadii bay kula jiraan shirarka kale oo siyaasiyiinta dibad jooga iyo dawladda iyo goormay soo dhamaanayaan marka shirarkan ay hadda leeyihiin puntland bulshadeeda iyo qaybaheeda kala duwan? waxa weeye horta inta uu la balansan yahay inta uu la hadleen innaga ugu horeynay hadda isimadii bay la shirsan yihiin waxaan u malaynayaa in ay ku xigaan siyaasiyiinta dibad jooga ah kabacdi waxaa ku xigaya baarlamaanka intaasba waxaa dhacaysaa baan filayaa maantay bay dhacaysaa gelinka hore iyo gelinka dambe waxa uu joogayaa oo keliya caawa berri wuu baxaya sidaanu wararka ku helayno marka waxa uu soo gabagaboobayaa tan iyo berrito haddii adegno marka ma aragti inta la ururiyo bay dib ula noqonayaan wixii meesha kasoo baxay aragtideedii go-aana bay ku dhawaaqi doonaan bixi markay baxayaan? wallahi waxaan u malaynayaa haddee iyagaa socday arrin bay la yimaadeen arrintaas annagu waxaanu ku bilownay in aan la aqbali karaynin qolooyinka kale ee naga dambeeya iyagana ma garan karayo laakin waxaan filayaa in wadadaas ay raaci doonaan way noqonayaan oo kulleyba haddee u malayn maayo inay leeyihiin waxbaanu soo bedelaynaa intaan noqono laakin waxay ku tegayaan in puntland aanay haba yaraatay ogolay 4.5 marka say iyagu yeeli doonaan beesha caalamku iyagay u taalla. aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka ah ee puntland marka lasoo gaabiyo loo yaqaan bunsa nuur shira cismaan. nuurow aad baad umahadsan tahay waktigaaga qaaliga aad nasiisayna aad baan kaaga mahadnaqaynaa golaha ADA-na aad buu ku salaamaya waana kusoo wici doonaa insha allah. aad baad u salaamantihiin aad baan idinka mahadcelinayaa. Thank you so much.